qof kastoo rikaaba, qof kastoo meesha dhibaato ku qaba, fariintan saa u wadaan gudoomiyaha gobolka dalaq u siiyaan iyo qofkii oo shaqo kule oo meeshan wax ka qaban kara. Maanta waxaan cabasho ka ahay magaalada Muqdisho laba wado oo keliya bis, kuwo kale oo iskaga dulqaadanayna laba wadaan cabasho ka ahay. Wadada Saybiano iyo wadada Masaarida. Maxay keeneen oo dhibaataan? Shantii beri la soo dhaafay magaalada waxay noqotay jaam zaa'ida. Maxaa keenay jaamkaas? Video ay la daawado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qaaliga soo dhawaada. Magacayga waa Master Kilimatani. Haddii ay tahay markaa kugu horeyso aad soo booqato waad ku maasan tahay booqashadaada. Customer care hordaad tahayna waad ku maasan tahay la joogitaankaaga. Fadlan YouTube-ga iyo Facebook-ga iyo TikTok-gayga like saar sina share garay followna soo dheh. Maanta cabashaan ahay. Maxaan cabasho ka ahay? Weligay social media inta soo fadhiista cabasho ma noqon. Cabasho maanta waxaan ka ahay anigu waxaan ahay bajaajle. Wixii dhib igu ahan waa inaan sheegaa oo weliba xitaa la sixi karo oo sixitaan u baahan. Qofka bini'aadamka wuu khaldoomi karaa, si kale wax u arki karaa, laakiin khaladkan haddii dhibaato badan ka imaanayso waa in xal loo helo. Maanta waxaan cabasho ka ahay magaalada Muqdisho laba wado oo keliya bis, kuwo kale oo iskaga dulqaadanayna laba wadaan cabasho ka ahay. Wadada Saybiano iyo wadada Masaarida. Maxay keeneen oo dhibaataan? Dhibaatadaas ummadda Soomaaliyeed, shacabka magaalada Muqdisho, bajaajleyda, gaadiidleyda iyo qof kastoo rikaaba oo mooto soo raacay, dhibaatada ayaantan waa la arkay. Shantii beri la soo dhaafay magaalada waxay noqotay jaam zaa'ida. Maxaa keenay jaamkaas? Video ay la daawado. Sida hadda halkan aad ka daawateen, wadadan waa wadada Digfaar iyo Masaarida u dhexeysa waa. Jagboondiga yaalla Masaarida nidaam khaldan ay sameeyeen. Tusaale ahaan waxay sameeyeen gaadiidka awalkii waxay mari jireen dhanka midig, ka bacdina waxay u leexin jireen dhanka luuqay u leexin jireen. Wadada way furneed, midda Digfaar oo tarbuunka aad toos ay u furneed. Mootooyinka, baabuurta, wixii toos u socdo toos ay u bixi jireen. Hadda marka waxay keeneen mootooyinkii waxaa la marsiiyey dhanka midig. gawaarida luuqa aad jirtay baarista mirjid waxaa la marsiiyey dhanka bidix la marsiiyey. Gaarigii jidkii la mar lahaa dhex fadhiistay. Wuxuuna rabaa inuu u leexdo dhanka midigu rabaa inuu u leexdo. Maba leexan karo gaarigii, jidkuu iska fadhiistay. Mootadii gudbi lahayd iyo gaarigii gudbi lahaa labadu ma gudbi karaan. Intay maraa marka gawaaridii oo ka imaaday dhanka isgoyska Digfaar ka imaaday intay maraa marka waxay marayaan wadada seedkan kale ee dadka tarbuunka ka imaaday ay maraan seedkaas ay marayaan. Kuwii tarbuunka ka imaaday iyo kuwii isgoyska Digfaar xaggiisa ka imaaday hal seed ay hal meel iskaga hor imaanayaan minaha. Kuwaana saanay usoo socdaan, kuwaana saasay usoo socdaan. ilaan kuwan kale dhanka bidix waxay xirtay gawaaridii oo dhanka Masaarida luuqeeda geli lahaa kuwaasay xirteen. Meeshu waxay noqonaysaa marka jaam. ilaan hal seed haddii la yidhaha iskaga hor imaada bajaajyadii dulqaad ma lahan, dhibaatadoodu waa iska badan tahay. waxaa hal maalin ay shaqeeyaan, kuleel badan ahaayo, waxay isleeyihiin ka gaarsiida marka waxay keentaa jaam tiro badan ay keentaa. Sababtoo ah jidkay mar lahayn gaariga fadhiistay waxay ku qasbi marka inay shaaxaadaan seedkan kale furan inay shaaxadaan. marka iyagana waxaa caqabad ku ah kuwii Digfaar kuwii tarbuunka ka imaaday iyo kuwii Digfaar ka imaaday waa iska hor imaadaan. marka qab meesha waxay noqotaa jaam zaa'ida. taas xaggaan dhigo. bajaajtii isgoyska Digfaar ka imaaday oo Soomaaliya horteeda soo martay markii meesha inay jaam tahay ay aragto way laabataa. waxay aadaan luuqa Digfaar inay ka baxaan oo magaalada ay korkaas maraan oo warshada caanaha inay maraan oo isaan ka soo galaan isku dayaan. gawaaridii iyo bajaajyadii tarbuunka jaamka ku soo galay iyagana waxay isdhahaan luuqaas Digfaar soo maray isgoyska xagga uga dhacee meesha ka baxay isdhahaan. waxaa la iskaga hor imaada marka luuqa yarka Digfaar hortiisa oo isbitaalka iridiisa aa la iskaga hor imaada. meeshiina waxay noqonaysaa iyadan haddana jiq ay noqonaysaa. waxaa isku xirmaayo tarbuunka, Masaarida, isbitaalka Digfaar hortiisa, isgoyska ilaa ay waxaa isku xirmaya meesha gawaarida lagu barto korkaas oo jiingad ay ku wareegsan tahay jiq ay noqonaysa. saas maalintii khamiista ahayd 2:40 aan ku jiro. ilaahow maxaa ku soo geliyay eegaas, maxaa ku soo geliyay 2:40 mootay meel uma dhaqaaqeen. Digfaar hortiisaa galay jiq ay isku noqotay. sababtoo ah jidkii la mari lahaa haddii gaarigan
oo masaarida ilaa midigu lahaa badixa la geeyey jidkii asaa xirtay awalkii waxay ahaan jirtay gaarigii midigu lahaan jiray luuqu ku leexan jiray mootooyinka marka wixii la baarayna way leexin jireen wixii aan la baarayn toosay iskaga socon jireen gaari hadduu yahay haddii mooto tahay seedkan manaa waa lagu kala gudbi jiray seedkii hadda gaaridii oo leexinaysaa la keenay taas horta waa khalad kow aan tagno sebiano iyadan sidii camalaa la yeela mootooyinka waxaa la marsiyey dhanka midig gawaaridii waxaa lasoo marsiiyey dhanka bidix wixii gudbi lahaa ma gudbi karaan jidkii oo saan u leexin jira oo maxaa lalahay isgooska markaa joogtid dhanka luuqan kale sii aadi jir meesha jajabka karikeshanka oo jaamacadda banaadir meesha aadi jirtid jidkaas intaad ku imaadid akiska tor intaad ka imaadid saa u socotid isgooska intaad ka leextid ma u leexin kartid laakiin jidkaas wuxuu ku fiican yahay meel kore oo jidid waxaa jira oo kor la maro oo xagga laga geli karo idan dhibaatadeeda waa sheegi doonaa nimanka marka waxay sameeyeen mootooyinkii midig la marsiiyey xarag dheeraa lagu xiray bidix waxaa la marsiiyey gaarigii adoo isgooska joogo saan uma leexin kartid waaba xiran tahay waaba kansal caadi waa wax mari karo isgooskaas ma jiraan qofkii rabo inuu meeshaas maro kor uu ka wareegsan kara bis caqabadda ka imaad marka waxay tahay mootooyinkii saybiyaana jaamka ku soo galay waxay soo maraan jaamacadda banaadir waddooyinka laamiyaashii hadda la burburiye ee kor ay soo maraan waxay soo galaan soomaaliya sudanes waxay ku jiraan digfer hortiis isgooska digfer jaamkay ku soo aruuraan meel laga baxa ma lahan way soo aruuraan soo socdaan waxay soo galayaan isgooska digfer hortiisay soo galayaan saybiyaanay kasoo wareegeen xaafaday soo dhexmareen waddada bacaadka ee jaamacadda banaadir horteeda meesha oo askartii waxay fadhiistaan oo karikeshanka ay soo marayaan dalcadda oo waxay soo marayaan sonikee dalcadda ay soo marayaan waxay soo galayaan digfer hortiisa jiqay iskuna wataa saybiyan iyadana saybiyan raji malahan in la maro ma laga yaabaan ku dha gaari toos u socdo iyo mooto toos u socoto inay marto baarista ay marto saas ay ku gudubto ma ogyihin gaari kale mari kar ma jiro wax kale mari kar malahan qofkii raba inuu meelahan kale magaalada ka galo labadaas wadda waa labada wadda ee ugu dhibka badan ee hadda laga yaabin yahay ani hadda shalay sabtiyeed waa shaqaynaya wallaahi aan ku dhaartay hal koors waagisuu u beriyey gediga u magaalada uma soo qaaday hal koors intaasoo dad i weydiinayay digfeeraa rabaa banaadiraan rabaa saybiyaanaa rabaa madiinaa rabaa balaa meel la marsiiyahay malaan wax kaa sii daran dadka madiina rabo buulixuya dhismaa ka socoto oo waddada waa dhismaa ka socoto haddaa martid isbitaal madiina luuqa meesha bacaadka isbitaalka isagana jaam waayo qofka madiina rabo marka waa inaa soo marsiisa warshadda caanaha akis control xoosh ka bacdi kor kasta kasoo gelisa meel kale oo iyadana lamara malahan sababtoo ah saybiyaana mara lehed saybiyaana macalnuur ama waxaa la jidca kaaraha mala soo aadi karo saaxiibyaalow dowladda guddoomiyaha gobolka qof kastoo cabashadan maqlaayo ilaahay ka cabsada waddadaas xal u keena war sidaa xal ma ahan warni waa laga shaqaysan lahay waddadaas dhibaataa lagu qabaa waddadaas waa ku rafaasannahay nidaamkaas hadda la keenay oo isbeddelka oo gawaaridan midig ay lahaayeen bidix la keenay dhibaata badanaan ku qabnaa seedkaas iyagaa xirteen gawaaridaas bajaajilay idina waxaa waaye luuq jidkii iskaga hormaanayaan shantan bir magaalada jaamkii ugu xumaa ka jiro cabashadan wax ka qabta haddaa bajaajilinahan qof kastoo rakaaba qof kastoo meesha dhibaato ku qaba fariintan saa u wadaan guddoomiyaha gobolka dalaq u siiyaan iyo qofkii oo shaqo kule oo meeshan wax ka qaban waa toosin waa karkarnayniyo kuleelaana gaar 2:40 macquul maha qof hal maalin shaqeyn 2:40 jaam inuu ku jiro suurtagal maaniyo hal keeno